shaqaynaysaa muddadii 12 bilood ahayd xilhayntiina waxyaabihiinii qabsoomay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. sidaad ogtihiinba degmada Buur-Saalax waxay magacaaban tahay muddo 12 bilood ah. runtii muddadaas hadee meel aaba ah waa dareemi kartaan oo sidii wax lagu qabtaa muddo qaadanaysa. waxaan isleenahay marka muddadaas aanu joognay anagu xilka mas'uuliyadda degmada Buur-Saalax waxyaabo badan baa qabsoomay marka loo eego horumarada lagama maarmaanka ah ee degmada xagga arrimaha nabadgelyada, nadaafadda, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, isku xirka iyo wada shaqaynta maamulka degmada iyo beelaheeda. waxaan oran karnaa wax badan baa qabsoomay. haddana dee adduun baynu joognaayo adduunku mar walba waa iska qabiyo meel kastoo aad wax ka qabato haddana waxun baa dhiman. laakiin waxaan oran karnaa heer maanta wax ku oola baa la gaaraan leenahay baan is oran karnaa. xafiiska hadda aan joogno aynu ku shaqaynayno iyo kuwa kaloo degmada dhammaantood waxay faaruq way ahayn hal kursi lagu maari hal xaashi ma ool marka anagu aan meesha nimid ilaa idankii iyo bulshada reer Buur-Saalax iyo dadaalkii maamulka degmada uu sameeyay baan intaa lagu gaaray. marka waxaan oran karnaa waxna waa qabsadeen wax badan oo noo dhimay. watay dhinacyada horumarka marka laga soo tago qalabaynta xafiiska iyo waxyaabaha kale ee deegaanka ama xafiisyada iyo xarumaha aad ku shaqaynaysaa ma jiraa gudaha magaalada hadday noqon lahayd hagaajinta wadooyinka, nadaafadda, waxyaabo horeyto aan u jirin oo intii 12 bilood ahayd xilkiina aad hayseen aad ku guuleysateen? waxaan ku guuleysanay wadooyin badan oo xirnaa waan furnay muddadaas waa hagaajinay. nadaafaddana waxay noqotay arrin joogto ah wacyigelin badan oo ballaaran markaan bulshada ku sameynay. waxay noqotay in si joogto ah looga shaqeeyo magaalada gudaheeda. toddobaadkiiba 4 maalmood baa magaalada gudaheeda laga shaqeeyaa. 3 maalmoodna waxaan ka shaqeynaa wixii foorayaasha magaalada ah. watay degmada deegaano ayaa hoos taga ama beelooyin sida dadku u yaqaanaanba. iyaga ma u gudubteen oo waxqabadkiina ma gaaray? horta waxaa la yiri wiil jilaal dhashaa horta waa reerkooda xalqadaa li Soomaaliya oo dhan marka la eego ama Puntland ba hadii waxyaabo badan horta way iska jiraan laakiin dhammaan 13 tuulo oo hoos timaada degmada waxaan kasoo dhisnay maamulo. kuwii hore u jireen waxaan ku sameynay dib u habeyn mid aan tigin oo aan waxaad ka sameeyay xiriirkii degmada iyo beelahana si fiican baan isugu soo xirnay. waxa ka jira oran kara wada shaqayn fiican baan leenahay maamulka degmada iyo hadda beelaha hoos yimaada degmada. waxaan report joogtaan la kala qaataa xogta la kala qaataa. watay laftigeeda magaalada waa magaalo ciid ah oo majidda wadalaamiyo soo gasha raf baa jira in la soo maro gaadiidka ka soo baxa gaalkacyo oo kale ama kuwa u socda ay soo qaadaan. iyada ma jira wax qorshe ah oo muddadaas aad dejisateen aad isleedihiin mustaqbalka aad guula ka gaadhaan? arrinkaas aad baad mahadsan su'aashaas inaad weydiiso waa su'aal muhiim ah. arrimaha hadda aan ku hawlanahay waxaa ka mid ah inaanu dhisno hadda haddii Ilaahay idno 1 kiiloomitir iyo bar magaalada dhexdeeda ah. dhaqaalaheediina intii badnay hadda aanu hayno aanu kula heshiinay company hawshaas fuliya. arrinkaas waanu ku hawlanahay waxaanu jecelnahay xamar Roma maalin la wada dhisin baa maalin ba inaan wax qaadno anoo ku xisaabtamay tamartayada adeegsanayna maalkay iyo maskaxda degma ahaaneed inuu adeegsanayna baan jecelahay hadii Ilaahay ilaa inta aan xilka hayno inaan gaarsiino meel cid nooga dambaysa ay wax ka jaan qaadi karaan insha Allah hadii Ilaahay. watay dhaqaalahaas ah xustay in wadadaasi aad gelinaysaan waqtigooda ma dhaqaale deegaanka laga aroogiyay baa mise waa wax banaanka idinkaga yimid? boqolkiiba 99 waxay ka yimaadeen deegaanka ama canshuurihii anagu dawladda hoose ay qaaday ha noqoto ama tabarucaad iyo isku tashi dadka bulshada Buur-Saalax ay sameeyeen ha noqotee. dhaqaalahaas wuxuu noqday dhaqaale Buur-Saalax ka yimid. waa jiraan dadyo jaaliyadaha dibadda oo wuxuu nagu soo caawiyay laakiin boqolkiiba 90 wuxuu ka yimid degmada gudaheeda. watay maxaa baaq u diraysaa shacabka reer Puntland ku daawanaya
ama ku dhageysanaya shacabka reer Puntland waxaan baaqan u diraya waxa weeye horta dhamaantood horta in nabadgelyada la adkeeyo horumar kasta oo bulsho ay gaartaa waxaa saldhig u ah nabadgelyada inaan ilaashano nabadgelyada aynu haysano inaan isku tashi aynu samayno sidii madaxweynaha dowladda Puntland hore ugu baaqay in ay يعني هرمرك أينك عيسوهينا إننا وهنقل تاجين تديوش شيء يعني واحد إنه هيسنو مالكنا يمسكحنا يمرغنا انتمدينه وحين نجاري كرنا ناش إنه هيكسنا نجاركنا حنا مركز إسكتش كاس إنه كاميرا لأنه إدكست أو هربولانا أما دقمو تولو قبل لا مقال مضح وهرمر جو جاري كرا قفكو إنه يسوي إسكتش هذا إن أود كا شيء ساكون واحد عن ترتالي وحقف مركو سو اسكو تشدو بو غار كرا هرمرka cid kale oo wax markaas caawisana oo heli kara waxaan ku baaqayaa dadka reer Bursa degmada Bursaalah iyo jaaliyadaha banaanka kooda ganacsatadooda iyo dhamaantoodba inay isku xir ay sameeyaan ay horumarkooda ay ka wada shaqeeyaan waxa wax lagu noqdo ama horumar lagu gaara isku tashi wada jir gacmooda jir wax ku noqdaan intaas aan ugu baaqayaa aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.